Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhowaan la filayaa inuu xilka qaadis iyo isku beddel ku sameeyo xubno ka mid ah golaha xukuumaddiisa. Inkastoo uusan jirin war si cad daboolka uga qaadaya arrintaas oo ka soo baxay qasriga madaxtooyada, hase yeeshee ilo ku dhow qasriga Somaliland looga arrimiyo ayaa sheegaya in xubnaha xilkooda waayi doona ay ka mid yihiin wasiiro ku-xigeenno, agaasimayaal guud iyo guddoomiyeyaasha hay-adda dowladda qaarkood. Waxa kale ay xoguhu tibaaxayaan in madaxweyne Biixi uu xilal ka bannaan xukuumaddiisa u buuxin doono, kuwaasi ay ugu waaweyn yihiin xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda oo uu kol hore iska casilay Yaasiin Faratoon oo muddaba guclo orod ugu jiray hanashada kursiga u sarreeya ee golaha wakiilada oo dhowaan looga calaf qaaday, iyo xilka afhayeenka madaxtooyada oo asagu bannaan muddo ku dhow 7 bilood. Xogaha ayaa sidoo kaleeto waxay daboolka ka qaadayaan in isku shaandhaynta uu samaynayo Muuse Biixi ay tahay mid sal ballaaran, isla markaana ay galaafan doonto mas'uuliyiin badan. Waxaana la sheegayaa in golihiisa wasiirada uu ka soo reebi doono tiro kooban oo keliya, kuwaas oo yihiin saaxiibo dhow. Waxaana ka mid ah wasiirada soo laaban doona Wasiir Maxamed Kaahin, Wasiir Siciid Sulub iyo Wasiir Saajin. Hase yeeshee waxay dhacdadani kala caddaan doontaa maalmaha soo socda. Dhinaca kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wicid Faysal Cali Waraabe oo ka hadlay isku shaandhaynta la filayo inuu madaxweyne Biixi ku sameeyo golihiisa xukuumadda ayaa madaxweynaha ugu baaqay inuu soo dhiso golo tayo leh, isla markaana uu soo xusho wasiirro aqoon leh oo uusan ka soo guran halkii kol hore ee gudaafada. Waa sida uu hadalka u dhigay. Somaliland dambas baynu ka soo dhex saarnay ash yaan ka soo saarnay qaran burburay baaba'ay. Caruurteena way ogeydeen waxay ku fadhiyi jireen caana booraha ay u fadhiyi jireen. maanta alxamdulillah meel fiican baynu marnaa. hala soo saaro dalka lagu hogaamiyo, idinkuna sharciga ilaaliya. Somaliland waa midaynayna qabyaaladaynu ka saaraynaa. waxa lagu bixin doonaa aqoon, qof kasta aqoontiisa ayaa wax ugu siin doona insha Allah taala. darajo mustaqbal fiican baynu leenahay. ilaahay hogaanka inoo hagaaj subhanahu wa taala. ilaahay hogaanka inoo hagaaj. madaxweyne waxa la isbedel buu sameeyaa. waxa la madaxweyne gudaafadii ha ka soo guranay meel nadiif ka soo qaada walaalahay. salaamu calaykum.